بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، waxaan ka hadlayaa sariqada waxa weeyaan qofka inuu horta si qarsoon wax ku xado. waxaa kaloo shardi ah qofka inuu ka xado meel ay ku jireen oo xirsi iyo ilaalin u ahayd inuu xoolihi ka qaato. wuxuu xadaa hadday lacag yihiin qasnadii loogu talagalay inuu ka xado, hadday maal yihiin mooradii loogu talagalay inuu ka xado oo xoolo yihiin. markii xoolaha uu xado qofkan muslimka ah uu xoolihii muslimka kale uu qaato oo si qarsoon uu ku qaato, axkaam baa ka dhalanayso. axkaamta ka dhalanayso waxaa ka mid ah horta qofkaas ciribta dambe ciqaab buu mudan yahay. yawma qiyaamo ilaahi subxaana watacaala wuu ka ciqaabi doonaa arrinta iyada ah, naar buu ku mutaysanayaa. laannu sariqadu waa shay weyn aad sharciga islaamkana ugu weyn weeyo, xagga kabiiradii ka mid tahay. xoolo muslim leeyahay markii aad xaddo waa arrin aad u foolxun weeyo, wax isku dadaga ma ahan. waxaa kaloo jirto sariqada qofka hadduu meeshii ku jirtay uu ka xado nisaabna ay gaarto oo lacagtu ay nisaab gaarto ilaa 50 dirham ay gaarto, inay markaa gacan gooyn uu mutaysto, adduunta joogo ciqaabtiis uu mutaysto ayaa mataqaanaaye ayaa ka dhalanayso. maadaama ay ka dhalanayso in gacan la gooyo adduunta la joogo, aakhirana mataqaanaa ciqaab weyn ka dhalanayso, qofka muslimka inuu iska ilaaliyo in wax khiyaano ama soo gasho tuugnimo ah waa laga maarmaan. laannu dadka muslimiinta ah tuugnimadu kuma badnayn, waa fasal xun loona badno. sariqada markaa waa shay aad u xun. ilaahay subxana watacaala waa eedeeyey, nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna waa eedeeyey. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay gabar dahab gabdho kale haday ka qaado ay tiraahdo xalfadan ku aadayaa. markii xalfadan ku aadayaa ay tiraahdo mataqaanaa hadhow dahabkii inkiri jirtay, marka hore dhagadhaga iyo faraantii ay qaadanaysaa. markii ay xalfadda aado haddii markhaati iyo dad lama joogin, markay xalfadda aado ay soo laabato ayay dahabkii inkiri jirtay dhihi jirtay na wax kama qaadine orday dhaaf. nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam, markaasaa nabiga loo keenay nabigu wuxuu yidhi gabadhan gacanta laga gooyay. saxaabadii qaar ka mid ah waxay isku dayeen inay mataqaanaa gabadhii ay xoolo u shafeecaan. nabi maxamed wuxuu yidhi hadday faalmo rasuul tahay bida gacanta laga goynayo maanta waa ka goynaha. marka waxaas idul dhaafay ayuu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qofka markaa hadduu xado intuuna soo gaarin xagga iyo mataqaanaa maxkamadda waad iska cafin kartaa. qofkii laga xaday xoolahan wuu iska cafin karaa, laakiin mar hadday maxkamadda imaado cafis ma jiro, waa inay xadka laga oofiyaa. marka sariqada intaas ayaan kusoo koobaynaa. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.